magaalada Johannesburg oo meesha ugu badan ay ku nooshahay Soomaalida Koonfur Afrika marka laga reebo magaal xeebeedka Cape Town waxa xalay isku soo baxay wadooyinka waaweyn magaalada dadweynaha aad u fara badan kadib markii ay maqleen natiijada doorashada dufadii waxa bilowday dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud goob walba waxa laga shiday heeso ka turjumaya ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo midnimada waxa magaalada ka muuqday fantasiyada ka jira waa kan sida uu jabiga ahaa xilliga ay socdeen dabaaldegyada شعب برلمان كدورتي waxaan kaloo ku faraxsanahay shacabka Soomaaliyeed بعد رويال تي في magacayga saddexan waa Cabdisaaq Maxamed Cabdulle inshallah waana naasba midnimo waay norta aad aan ku faraxsanahay waxyaabaha jaaniska aad noo siisay markina codkeena aan ka dhiibano dareenkeena in hadeena ku muujino qorshada noo curatay oo aan dareemayno si dimuqraadiyad oo maanta Soomaaliya loogu doorto madaxweyne Soomaaliyeed ay yihiin ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taasi waxa dowladda Koonfur Afrika ayaa ku tilmaamtay wixii xalay ka dhacay Johannesburg inay ka turjumayso sida ay Soomaalidu u rabaan inuu wadankooda nabad u noqdo shaqaalaha ka howlgala xafiiska TV-ga caalamiga magaalada Johannesburg ayaa hambali u diray madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudan Xasan Sheekh Maxamuud waxay leeyihiin waxaan kugu ognahay howl wanaagsan Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Aboke xafiis wareedka TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika